daawadayaal maxaad ka taqaaniin tiknoolajiyadda casriga ee mustaqbalka la hiigsanaya 5G maxay tahay saameynta ay adduunka ku reebi doonto mustaqbalkan dhow haddaba daawade ku soo dhawow warbixin aanu ka diyaarinay tiknoolajiyadda casriga ee 5G waxaan inala socodsiin doonaa hadduu ay baraali ka noqdo anigoo ah Cabdullaahi Axmed ku magac dheer injineer wooyi fadlan haddii aad ku cusub tahay channelka subscribe like-na ku casuum Generator 5 waa mid ka mid ah generatorada caalamku isticmaalo iyadoo 5G la hiigsanayo inuu mustaqbalka dhow hirgalo adeegan xawaarihiisu aadka u sareeya lagu magacaabo 5G ayaa adduunyadu loolan ugu jirta shirkadaha soo saara tiknoolajiyadda casriga ayaa iyagu ku loolamaya suuqa tiknoolajiyadda sidii ay ugu gacan sareyn lahaayeen sidoo kale wadamada horumaray ayaa iyaguna loolan ugu jira sidii ay shirkadahoodu saameyn ugu yeelan lahaayeen adeegan casriga ee 5G adeegan casriga ee 5G ee mustaqbalka la hiigsanayo ayaa isbedel ku keeni doona adeegyo ay adkayd in si fudud loo helo kuwaasoo ay ka mid yihiin qaliimada isu socodka iyo adeegyo kale ee ay aadamuhu isticmaalaan khubarada tiknoolajiga ee caalamka ayaa waxay booriyeen adeegan 5G inuu yahay riyooyinkii aadamigu ku haminayay oo rumoobay dhanka kale macallimiinta iyo waalidka ayaa ka muujinaya caqabad adeegan cusub iyadoo ay u sababeynayaan in adeegani uu ku yahay caqabad weyn dhallaanka soo koraya iyagoo kaga mashquulaya waxbarashada tiknoolajiyadda caalamka ayaa waxa ay saameyn ku leedahay dhaqamada ay leeyihiin aadamigu ee asliga ahaa iyadoo laga kala dhaxlo dhaqamada kala duwan ee caalamku isku gudbiyo sidoo kale tiknoolajiyaddan ayaa laga cabsi qabaa inay saameyn ba-an ku yeelato garaadka dhalinyarada mustaqbalka maadaama ay tiknoolajiyaddan tahay mid wax kasta si fudud aada uga helaysid dhanka kale khubarada caalamka ayaa waxa ay sidoo kale sheegeen inay tiknoolajiyaddan haddii looga faa'iidaysto dhanka fiican ay tahay midda keliya ee ku saacidi karta sida ugu fudud maadaama laga heli karo tiknoolajiyaddan waxyaalo aada u qiimo badan sidoo kale qaaradaha adduunka ayaa tiknoolajiyaddan ku loolamaya sidii qaarad walba ay saameyn xoogan ugu yeelan lahayd tiknoolajiyaddan laakiinse qaaradda Afrika ayaa iyadu ah qaaradda keliya ee aan wadamadeedu qayb ka ahayn fikradaha hogaaminaya tiknoolajiyadda cusub ee 5G taasoo caqabad weyn ku noqon doonta isticmaalka adeegan xawaaraha badan haddaba daawade waxaanu inoo soo gudbin doonaa hadduu eebe raali ka noqdo tiknoolajiyadda casriga ee kala gedisan dhanka caafimaadka cuntooyinka iyo wax kasta oo ay tiknoolajiyadda saameyn ku yeelan doonto annagoo mid kasta qodob kasta kaga hadli doonaa faallo aada u dheer wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakatu